shacbiga Soomaalida walaaleen waxaan rabaa video yarka inaan tusiyo shacbiga ku nool Somaliland askartooda dadka badankooda iskaga dhex nool Somaliland dhexdeeda waxaan ka hadlaynaa meesha Isaaqlanaya Burco Hargeysa baan ka hadlaynaa meelahaas oo kale dadka meesha iska jooga waa aragtaan filmaanta cadcadaanka hadda ay soo bixiyaan dadka oo la dhaho zombie waa taqaanaa waxa la dhaho qof ma taqaanaa oo xayawaan camal oo dareen aan lahayn oo waxba aan dareemin oo iska dhex socda adduunka badankooda dadka saas u badan yihiin askartooda $100 la iska siiyaa noloshiisa ma jecla wuxuu jecel yahay wuu iska nool yahay kaliya xayawaan camal dadka badankooda saas ay wadayiin ogaadaya dadka Soomaaliland jooga marka waxaan rabaa inaan tusiyo videogan bal iska fiirsada dadka jaadkiya laga jaray kaliya fiirsadaya waxay sameynayaan ninkan waa aragtaa jidka gaari xataa ma arko cirku maraya laba ag taagan kulligood isku wadmada meeshan siduu fiirina fiir waa xanaaqsan yahay waa la iska waasho meesha jaad baa loo dhimanaya waa la iska wareersan yahay Somaliland iyo waxaa jira siyaasiyiin ka jeeda Somaliland oo caqabad ku ah wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya iyo midowga labada dhinac waa su'aal ay dad badan isweydiinayaan jawaabtana looga fadhiyo dowladda federaalka haddaba yaa ka mid ah siyaasiyiintaas aan marnaba raaliga ka ahayn inay isku yimaadaan Somaliland iyo Soomaaliya waa marka koobaad xildhibaan wasiir Maxamed Cabdi Maareey xildhibaan Xuseen Carab Ciise xildhibaan Caashikoor iyo xildhibaan Mustafa Qodax inkastoo ay jiraan siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda gobolada waqooyi haddana kuwan waa shakhsiyaadka aanan doonin inay midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland haddaba maxay tahay sababta xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland gaar ahaan Burco ilaa Hargeysa ay aad uga dhex ololeeyaan gudaha Soomaaliya iyagoo xukuumadda qayb ka ah aan soo qaadana wasiir Maareey waa xildhibaan ka soo jeeda gobolka Togdheer wuxuu inta badan qayb ka yahay xukuumadihii soo maray Soomaaliya markasta oo uu banaanka ka istaago nidaamka dawliga ee markaasi jira wuxuu si toos ah ugu ololeeyaa aragtida qayb ka mid ah Somaliland oo ah inay goosato Somaliland waa ogtahay dal waxa oo 1960 ka qaatay xorriyadiisa Ingiriis wuxuu la midoobay koodii July dal kale oo Soomaaliya la dhigi jiray oo xorriyadiisa ka qaatay haddaba maxaa bedela marka uu xil helo muxuuse u dhaleeceeyaa kuwii uu shalay u oleynayay shacabka iyo madaxda reer Somaliland oo runtii ah meelaha ka soo jeedo wanaagna la jecelahay waxaan kula talinayaa buuqa iska daayay oo la imaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadi kartaan isbeddelka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ee ka socda geeska Afrika iyo adduunka tani waa danaysi siyaasadeed oo ay dhammaantood ka dhex wadaan gudaha xukuumadda iyo nidaamka dowladda haddii ay labada dhinac midoobaan wax dana uguma jiraan dhammaantood oo waxaa dowladda qayb ka noqon doona kuwa ka aqoon badan hawshana looga maarmi karo haddaba si aysan taasi marnaba u dhicin maxay sameeyaan marka uu wada hadal soo dhawaado maba arkaan uu fursad iyo marxalad iyo xaalad saamaxaysa inay Soomaaliya imika wada hadal ay Somaliland la furto oo wax ku kala goosanayaan inay geli kartaan oo warko waxa ka Soomaaliya marka ka hadlayo ma aha oo kaliya marka wada hadal soo dhawaado balse maxaa dhaca marka dowladda Soomaaliya ay ka hadasho Somaliland iyo ayaheeda farmaajo ayaa tagaya Hargeysa waxaan arkaa arrintaas inay arrin lagu degdegay tahay arrin lagu khalkhalgelinayo runtii bulshada iyo Somaliland nabadda iyo dowladnimada ay samaystay tahay kala fogeynaysa ummadda haddaba tani waa caqabada ugu weyn ee gudaha Soomaaliya ka haysata midnimada Soomaaliya siyaasiyiin matala Somaliland ma ahay waddanaystayaal kursigooda ilaashanaya dowladda hadda jirta kuma baraarugsana dhagarta ay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland u maleegayaan wasiir Maareey iyo xulafadiisa waxayna ku abaal marisaa Maareey xil sare